Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre ayaa booqasho ugu tagay qaar ka mid ah dadkii ku guryo beelay roobabkii ka da'ay Muqdisho kuwaasoo maamulka gobolka Banaadir ay dejiyeen goobo ku meel gaar ah si uu indhihiisa ugu arko halka ay gaarsiisan tahay khasaaraha ka dhashay roobabkaasi iyo gurmadka gobolka Banaadir uu wado. wasiirka amniga gudaha ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Abuukar Islow Ducaale gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho taliyaasha ciidamada qalabka sida ayaa ka qayb qaadanaya gurmadka lagu keenay dadkaasi goobaha ay ugu talagalay maamulka gobolka Banaadir in si ku meel gaar ah ay u degaan. Ra'iisul Wasaaraha ayaana uga mahad celiyay dhammaan dadkii ka qayb galay gurmadkaasi lagu badbaadinayo shacabka Soomaaliyeed. Ra'iisul Wasaare Khayre ayaa dadkii ku sugnaa goobta uu dejiyay gobolka Banaadir mid uga xog wareysanaya xaaladdiisa caafimaad iyo sida ay wax u gaareen wuxuuna amray in si degdeg ah wax loogu qabto hooy rasmi ahna la deji doono dadkaasi. Dadkan waxay u badan yihiin kuwa da' iyo caruur ay ku jiraan ilmo aan ku qiyaasay inuu jiro 2 bilood. roobabka ka da'ay Muqdisho waxa ay sidoo kale saameeyeen wadooyinka kuwaasoo qaar badan oo kamid ah uu ka muuqdo burbur halka qaar kalena ay fadhiisteen biyo aad u badan. Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre ayaana kormeeray qaar ka mid ah wadooyinkaasi oo ay dawladda hoose xamar ay ka waday howlo looga saarayo biyahaasi wadooyinka qaar iyadoo ay ku weliyeen wasiirka amniga gudaha gudoomiyaha gobolka Banaadir taliyaasha ciidamada qalabka sida xubno ka tirsan maamulka gobolka Banaadir oo ka mid yahay xogayaha guud ee gobolka Cumar Cabdirasaaq Xuseen. Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre ayaa shacabka Soomaaliyeed ugu baaqay inay ka qayb qaataan gurmadka lagu badbaadinayo shacabka Soomaaliyeed oo ku kala nool caasimadda iyo qaar ka mid ah gobolada dalka kuwaasoo ay saameeyeen roob mihigaan oo ka da'ay. sida uu sheegay wasiirka amniga Maxamed Abuukar Islow Ducaale oo la hadlay warbaahinta qaranka. marka hore waxaan leeyahay raajicuun dadkii ku geeriyooday ama iraahday ku shahiiday fatahaadida wadanka ka dhacay oo dhan meel gobolada kala duwan waxaan leeyahay dadkaas Ilaahu naxariisto jannada firdaws Ilaah ka warabsho. intaas kadib bacda maqrib ra'iisul wasaaraha dalka Xasan Cali Khayre iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir duqa magaalada ku-xigeenadiisa taliyaasha ciidamada qalabka sida qaybahooda kala duwan waxaan kormeer ku tagnay goobo badan ay ka mid tahay degmada Xamarweyne ee biyo badan fadhiisteen degmada Xamarweyne sidoo kale waxaan tagnay degmada Boondheere degmada Wardhiigley Hodan iyo meeshaan checkpointiga marka dhinaca boorka la tagay iyo meelo kale biyo fadhiisteen. ujeedkuna wuxuu ahaa inuu soo aragno dadka meesha dhibka ka soo gaaray iyo sidoo kale meelaha biyaha fadhiisteen. xaqiiqdii dawladda waxay u gurmatay dadka inta markaas ay ka gaarsiin kartay waxaan la sheegay in 4 maalin soo socdo sidoo kale inay roob imaan doonaan qolooyinka saadaasha hawada warkaas inuu soo gudbiyeen. marka waxaan shacabka Soomaaliyeed inay isku gaaraan ka codsan lahaa sidoo kale madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha waxay fareen maamulka gobolka Banaadir ciidamada qalabka sido qaybahooda kala duwan maanta ilaa 500 ciidan si volunteer u shaqeynaysay saaka ilaa iyo saacada hadda la hadla ciidamada shaqeynaya. ciidamadaasna waxay u taagan yihiin inay taageeraan dadka ku soo barakacay ama guryahooda ku soo burburay roobabkii ka da'ay magaalada Muqdisho. marka waxaan leenahay shacabka reer Muqdisho isku gurmadaan sidoo kale waxaan dawladda ay balan qaadaysaa inay sii wadi doonto dadaalada ay hadda ku jirto beerina way sii wadi doonaa. guddiga la sameeyay guddigaasna wuxuu xarun u yahay gobolka Banaadir markastaan hore u sheegay xildhibaanada iyo wasiirada iyo dadka mas'uuliyiinta kale ganacsiyada waxay imaan karaan qofkii kaalmeynaya dadkaas tabaalaysan gobolka Banaadir xarun 2 maalmood soo socda meesha la joogi doonaa. roobkan xooggan ee ka da'ay Muqdisho waxa ay saameynta ugu weyn ku yeesheen dadka danta yar kuwaasoo qaar badan oo kamid ah ay deganaayeen guryo ka samaysan baco iyo kartoomo. guryahana intooda badan waxaa qaaday daadadkii ka dhashay roobabkaasi iyadoo hadda dadkaasi aysan haysan hooy ay degaan. inkastoo maamulka gobolka Banaadir uu wado dadaalo xooggan oo dadkaasi lagu dejinayo goobo ku meel gaar ah waxaana laga maarmaan ah guud ahaan shacabka Soomaaliyeed inay ka qayb qaataan gurmadkaasi lagu badbaadinayo dadka walaalahooda ah ee aan caawa haysan ama maantay hooy ay ka galaan qabowga iyo qorraxda baahiyana ay u dheer tahay. Nasr Bashiir Cali warbaahinta qaranka.